koonfur galbeed Soomaaliya maxaa ka soconaya kadib markii uu si rasmi ah xilka loo wareegay hogaamiyaha koonfur galbeed Soomaaliya Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo shalay doorasho ka dhacday magaalada Baydhabo lagu muransanaa markaasi si awood kaga qaaday Shariif Sheekh Xasan oo ahaa markaasi madaxweynaha sida waa markaasi weyn ugu loolamaya doorashadii ka dhacday magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxaan kula wadaagi doonaa xog faahfaahsan oo ka soo baxaya magaalada Baydhabo ciidamadii lafta gareen oo Itoobiya ku eedeeyay inay markaasi dawladda Soomaaliya ka garab siiyeen inay gacanta ku dhigto magaalada Baydhabo ayaa sidoo kale barnaamijkan qayb ka noqon doona sidoo kale waxay sheegeen in markaasi dhawaan ay duulaan ku qaadi doonaan magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya soo dhawaada daawadayaal taariikhdu waxay ku aasaysan tahay 11 bisha 6 Juun sanadda 2020 haddii aynu ku bilaawno magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Aadan Madoobe ayaa si rasmi ah loo wareegay xilkii markaasi loo dhaariyay hogaamiyaha cusub ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya kadib markii uu shalay ku soo baxay xilkaasi oo markaasi kaligiisa halkaasi uu ka soo baxay Shariif Jawaari ayaa ku sugnaa madasha doorashada Shariif Sakiin oo markaasi Shariif Sheekh Xasan Sakiin ayaana markaasi gebi ahaanba isaga baxay doorashadaasi isagoo sheegay in doorashadan ay tahay mid hal dhinac u jarjeerto Sheekh Aadan Nuur Aadan Madoobe oo markaasi ku guuleystay doorashadii ka dhacday magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in markaasi uu weerar ku qaadi doono mucaaradka magaalada Baydhabo iyo guud ahaan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxa uu ka dhawaajiyay in markaasi uu la dagaalami doono mucaaradka sida weyn uga soo horjeeda maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxa uu tilmaamay in markaasi uu hogaamin doono maamulka cusub ee loo igmaday doorashada ka dhacday magaalada Baydhabo ayaa markaasi lagu muransan yahay iyadoo markaasi xubnihii sida weyn ula loolamiyay xisbiga Soomaaliya ee GSB ay markaasi cadaalad ra'yi ka sheegteen doorashadaasi dhinaca kalena duleedka magaalada Baydhabo waxa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo ay wadaan xubnihii siyaasiyiinta waa markaasi mucaaradka ee koonfur galbeed Soomaaliya ee lafta gareen waxayna sheegeen in gebi ahaanba ay doonayaan inay doorashadaasi ama markaasi ay la wareegaan gudaha magaalada Baydhabo dhawaan ay ahayd markii magaalada Baydhabo dagaal lagu galay ciidamada badbaadada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo ku taabacsanaa Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ee ku sugnaa duleedka magaalada Baydhabo waxay sheegeen in dabcan ay doonayaan inay la wareegaan magaaladaasi iyagoo tilmaamay in markaasi markasta ay la wareegi karaan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Baydhabo abni waa markaasi Aadan Madoobe ayaa xilka la wareegay dhaqdhaqaaqyo kala duwan ayaa ka soconaya waxa uu sheegay in markaasi uu dhisi doono ciidamada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya si weyn oo markaasi uu la dagaalami doono ciidamadii daacadda u ah madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo si weyn xilligan u doonaya inay markaasi weerar qorsheysan ay ku qaadaan magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ciidamadii daacadda Madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen Itoobiya ay ku eedeeyeen inay markaasi ku lug leeyahay doorashadii ka dhacday magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxayna sheegeen in markaasi doorashadaasi Itoobiya ay ku leeyahay sidoo kale Itoobiya ay ku eedeeyeen inay markaasi ka dambeysay in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay markaasi la wareegaan magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxay tilmaameen in markaasi doorashadaasi ama markaasi ay ka gacan siiday dawladda federaalka Soomaaliya maamulka koonfur galbeed wixii ka dhacay waxayna tilmaameen in markaasi ay si weyn uga soo horjeedaan ciidamadan ama markaasi dawladda ku sugan magaalada Baydhabo waxayna markaasi tilmaameen in markasta ay la dagaalami karaan xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ee sida weyn markaasi uga soo horjeeda dawladda maamulka koonfur galbeed Soomaaliya haddaba waxyaabaha ka soo kordha waa markaasi dooda ka tagan magaalada Baydhabo halkan ayaan idin kula wadaagi doonaa